watahay daawadayaal hadda waxa garabkayga fadhiya Sultan Ibrahim oo kamida madax dhaqameedka Somaliland Sultan soo dhawow sabtifi ku soo dhawow xalay tolo qodobo ka soo baxay kulankii asxaabta mucaaradka waxa ku dhawaaqeen in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aan u aqoonsanayn mid sharciya adiga qodobada ay soo saareen asxaabta mucaaradkiisu kula muuqdaan bismillaah waan dhawahay marka hore marka labaadna waan idin salaamayaa idinka oo ah SAB TV iyo bulshada weynta reer Somaliland halkan iga daawanaysaba arintii xalay tolo dhacday ama baaqi ay soo saareen axsaabta mucaaradku ama maxaan ku raahday qoladan maxaa la yiraahdaa la baxday ku midowday maxaa la yiraahdaa mucaaradka labadan xisbi ee ku isbahaystay qodobadii ay soo saareen waxay ahaayeen qodobo aad u culus runtii waxay ahaayeen arin marka loo eego xagga siyaasadda saameyn badan laga yaabo in dalka ku yeelato intii ay Somaliland jirtay ee ay jireen nidaamkan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waxay arintii ugu cuslayd ee dalka soo marta in arintii xalay toole ay labada xisbi ama isbahaysiga mucaaradku ay ka hadleen sidoo kale waxaan oran karaa waxay ahayd arintii ugu adkayd ama fursadii ugu maxaan ku raahday ay beelihiso xukuumadda kulmiye ee uu garwadeen ka yahay Muuse Biixi waa fursadii ugu weynayd ee ay dayacdo taasoo banaanayd ama ay maxaan ku chance haysteen in badan in ay baajiyaan dhawaaqa ay xalay ku dhawaaqeen axsaabta mucaaradku runtii arintaasina waa arin xukuumad ahaan iyo qaran ahaan labadaba ku keenaysa maxaan ku raahday damage siiba xukuumadda kulmiye waxay ku keenaysaa dhaawac culus oo ay maxaan ku raahday aad u adag tahay si uga soo kamaan mar haddii axsaabtii mucaaradka oo aqlabiyadda dalka maxaan ku taageerayaashooda haysta aan lana oran karo boqolkiiba 70 baa taageersan shacbiga reer Somaliland in ay maanta ku dhawaaqaan maxaan ku raahday in aanay aqoonsanayn xukuumadda uu garwadeen ka yahay Muuse Biixi iyo madaxweynenimada Muuse Biixiba aanay aqoonsanayn taana ay in badan sugayeen oo ay naawilayeen oo ay u dhigtaagayeen maxaan ku taageerayaasha axsaabta mucaaradku arintaasi arin fudud may ahayn waana arin laga yaabo in la yeelato maxaan ku raahday wajiyo badan oo carqalad noqon kara Sultan Sharitoole ay ku beegneed muddaxileedkii dhamaadkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi yaa leh mas'uuliyadda dibadhaca doorashada madaxtooyada dibadhaca doorashooyinka waxa leh maxaan ku raahday xukuumadda iyo madaxweyne Muuse Biixi sababtoo ah cid kale oo arintaas maxaan ku raahday ka hormuudahayd ama arintaas maxaan ku raahday fulinteeda lahayd oo aan ahayn xukuumadda uu garwadeenka ka yahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi may jirin marka maadaama isagu hawsha u igmana ama uu mas'uuliyaddeeda lahaa ama waxa uu madaxweynenimada uu ku metelay ay kamid ahayd arrimaha doorashooyinka iyo qabashadooda waxay noqonaysaa dibdhac kasta oo ku yimi lambar 1 sababta isaga yeelanaya walow talooyin lala lahaa haddana go'aanka iyo mar walba suurtagelinteeda arrimaha doorashooyinka isaga boqolkiiba 90 lahaa isagaana sababteeda dibdhacana yeelanaya waxa weeyaan horta haddii aan kala qaado labada muddo kordhinood ee midna ay commissionku kordhiyeen midna ay guurtooda kordhisay commissionku iyagu waxba may kordhin waxa ay sheegeen xilliga ay doorashada qaban karaan waayo waqtiga oo dhacay ayaa commissionkan la doortay oo aan waqti badan aanay haysan dabeetana waxay soo gudbiyeen ka diyaar garowga doorashada madaxtooyada inta ay kaga diyaar garoobi karaan hadii ay tahay maxaan ku farsamo ahaan iyo hadii ay tahay diiwaan gelin ahaanba taa darteed waxa ay sheegeen in ay qaban karaan oo ay maxaan ku 9 bilood gudahood ay ku qaban karaan
taasi markaa waxa weeyaan waa qorshihii ay iyagu rabeen ama ay rajeynayeen wax ku qaban karaan ta muddo kordhintii waa ta guurtida ta guurtiduna waxa weeyaan waxay ku iman lahayd mar haddii aanay horta marka koowaad aanay jirin marxaladihii adkaa ee ay qorayeen dastuurkeennu in lagu kordhiyo waqti aanay jirin ee ay nidaam farsamo yimid waxay ahayd in laga heshiiyo oo ay axsaabta mucaaradka iyo ciidaneeyayaasha maxaan ku haday doorashooyinku dhammaan ay ka heshiiyaan ama dalka haata ama dibadba haatee adigu wixii suurtagala in laga heshiiyo dabeeta uu muddo kordhintu heshiis loo dhan yahay ku timaado taasina kuma iman nidaamkii iyo qorshihii heshiis kuma imanin muddo kordhintaasi waxay ku timi nidaam muddo roortineed sidaa darteed ma noqon karto ama looma maxaan ku haday aqoonsan karo muddo kordhin sharciya marka shacbigii kacsanaa iyo xaaladii adkayd iyo waqtigii oo ahaa waqtigii madaxweynaha oo dhammaaday oo aan wax sharciya oo layslay gartay oo meesha yaala aanu jirin waxay ahayd arrinta ay ku dhawaaqeen xalkii ugu wanaagsanaa ee siyaasadeed ee dhinac walba u danta ahaa in ay arrintaa yidhaahdaan waayo iminka waxay ku kooban tahay oo keliyata madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay ka darnaan lahayd maanta iyadoo saamaysa dhammaan qaranka oo dhan wanaga iyadoo ay ku dhawaaqeen in aanu madaxweyne aqoonsanayn dalkii degan yahay maxaan ku wada nool yahay la shaqaysanayo amnigiis maxaan ku wanaagsan yahay fawdad iyo dhibaatooyin badan oo kale dhici kari lahaa ayay tani u noqotay xal marka waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin aan soo dhaweynayo ama waa arrin maxaan ku haday arrintii ugu marka xagga siyaasadda leego ugu macquulsanayd ee possible ka ahayd tani waxay saamayn badan bay yeelanaysaa saamayn fara badan ayay leedahay kow dadkii daneeyayaashii arrimaha siyaasadda aynu saaxiibada ka ahayn waxay ku yeelanaysaa maxaan ku ahday waxay abuuraysaa shaki iyo dareen iyo cabsi ayay gelinaysaa sidoo oo kale waxa ay maaragtay dadkii ina siin jiray maxaan ku rahday dadkii dawaa'ilkii caalamiga ahaa ama hay'adii caalamiga ahaa ee kaabistayna siin jiray ee horumarkeena iyo maxaan ku ahday gacan qabashada ina siin jiray qudhooda waxay ku keenaysaa maxaan ku ahay gaab maaragtay dhexdeena yimaada iyo shaki iyo iyaga oo garan waaya cid maxaan ku ahay si toosa ay arrimaha ugala xidhiidhaan waxay kale keenaysaa dadkii maalgashiga ay sameynayay ee muwaadiniinta ahaa inay cabsi iyo shaki ay geliso oo ay keento dabata dadkii inay la baqdaan hantidoodii ama mid gudaha taala ha noqdaan ama mid dabada ay ka keenaan baa noqotay taasina inay maartay iyadana halka ku yimaado gaabis iyo dibudh maxaan ku aday dhiiran waa inay timaado suuragal baaq nooceed wallahi waxaan ugu baaqayaa horta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu maanta ogolaado wax kasta oo dalkani ay waanwaantiisa iyo nabadgelyadiisa iyo midnimada qaranku ay ku jirto inuu maanta u soo dhaadhaco oo waxaan u ogolaado ayaan ugu baaqayaa waxaan kaloo maxaan ugu baaqayaa ummadda reer Somaliland kow inay marka koowaad horta ilaashato amnigooda iyo nabadgelyadooda oo aanay wax gacan ka hadala iyo wax dhibaato ah iyo wax fawdo ah midnaba aanay sameyn siiba dhalinyarada gobolada siiba togdheer iyo sanaag iyo gobolada la midka ah ee aad iyo aad imka ilaa xalay waxa xaaladu uga soo socotay waxaan ugu baaqayaa halkii ugu sareysay bay ayay ka hadleen shalay 13 November mucaaradku wax ka weyn oo la sameyn karo in ay yiraahdaan maxaan ku rahday ma aqoonsin wax ka weyn oo la oran kara ma jirto واو اسبوعك في عايز صاحبي wadkeeshi sama ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa